قصة الفضيل بن عياض nin la oran jiray Fudayl ibn Iyad wuxuu ahaa dadka wanaagsan buu kamid ahaa magaalada Samarqand ayuu ku dhashay gobol iyo maarta wuxuu ku soo barbaaray Khuraasaan wuxuu degay magaalada Makka iyada ayuuna ku dhintay markii dambe Fudayl ibn Iyad markiisii hore wuxuu ahaa rajul dadka cabsi geliya oo dadka qutaacu turuqda oo wadooyinka umada u fadhiista oo baarta oo dhul jiifka la yiraahdo oo meelaha dadka ku baarto waxay wataan ka qaata ayuu ahaa aadna waa looga cabsan jiray ibn Asakir ayaa wuxuu leeyahay sababta uu Fudayl ku toobad keenay wuxuu ahaa isagoo oo meesha bahgooyada ah cidlada joogi jiray dadkana cabsi gelin jiray ayaa waxa dhacay ninkaas sababtaas waxay ahayd gabar jaariyad ah ayuu maaragtay ninkaasi caashiqay uu jeclaa gabadh buu jeclaaday maalin maalmaha kamida ayuu marka habeen iyadoo gabadhu guriga ku jirta buu darbiga soo fantay adawnin iska dhul jiif oo garanaysa darbiga intuu soo fantay baa wuxuu rabay gabadha inuu halka uga dhaco uu guriga uga soo dhaco isagoo oo halkii fananayo darbigii saaran ayaa wuxuu maqlay qiraa'ah aayad la aqrinayo oo ah aayada Ilaahi subhanahu wa ta'ala fi surati al-Hadid aayada 16 ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق أيضاً ومعنى هذا الشيء ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وردتك أهل إيمان كأه مسلمين تأه مؤمنين تأه سولما جارين حلقي أي الله أتوبت كين لهايين سبحانه حلقي أي أجوكسن لهايين إلهي وحسود دجي سبحانه وتعالى آيادي مركو مقلي أيو نينكي إسلام مركيبا واستاغي وصولابتي ميل يرأو إسكا ججب أهو ماركتي قشن قب أبو إسكا قلي حالكيبو كجري هبينكي وجوغي كدبنا وحي شيغيان قصصكو إن فضيل إلهي سبحانه وتعالى بسببته هدايتي سادو أسود دجيو آياتي مقلي لأن الله وحلي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فضيل وطوبت كيني وحونا لدرس حرمك أيو إسكيميد إلى أكرنتو قوليها قاركود وحيلين صببتو وحي أهيد ابن عساكر سودو كالسو قورين إساقو دادكي آدو عبسي قلنا إياه niman baa soo maray isagoo duurka ku jira ayaa waxay maqleen wuxuu maqlay iyagoo dhahaya war caawo in rara oo in Sacuudsiya Fudayl baa meelahan fadhiye iyeenan maartay in qabsanayno soo inaga qaadanina kadib baa ninkaas wuxuu yiri ma umada gooreynaysan aniga ayay iga baqayaan aniguna iyaga ayaan cabsi gelinayaa aayada markuu maqlayna wuu qayliyay Ilaahi subhanahu wa ta'ala buu u toobad keenay Fudayl ibn Iyad waxa lagu tilmaamaa sida Ibrahim ibn al-Ash'ath uu leeyahay wuxuu leeyahay ma ra'aytu ahadan kana khawfu Allah fi sadrihi a'zamu min al-Fudayl nin Fudayl ka cabsi badan ma ana arkin buu leeyahay wuxuu ahaa markuu Allah xuso subhanahu wa ta'ala Ilaahi marka la xuso waa istaagi jiray markii maartay la sheego waa qushuuci jiray quraanka hadii la aqriyo way ka muuqan jirtay ee waa laga arki jiray indhihiisa ayaa ilmeyn jiray waa ooyi jiray nin noocaas ayuu ahaa ayadaas markuu maqlay alam ya'ni lil ladina aamanu an takhsha'a qulubuhum li dhikri Allah waxa la yiraahdaa alam ya'ni waa mushtaqa min al-an hadda ayaa laga soo qaatay macnuhuna waxa weeye الآن توبوا ورحد الله توبت كنا سبحانه الآن توبوا هذه اللحظة الله توبت كنا سبحانه وتعالى ذكر إلهي الله لابته خشوع له الله لابته إلهي سبحانه وتعالى استغفار أيو أقول لابتي سيدا صنع فضيل ابن عياض يو كتوبت كنا أيها الأحبة